halkaas video waa lagu soo bandhiga adoo hadlayo muxuu ka hadlay videogaas dagaalku ma jirin muxuu ku saabsanay video caadi ah anu gurigay joogo video aan caadi ahayn ma jiree muxuu ku saabsanay videoga muxuu ka hadlay dagaal iyo waxaas dhan ma ka hadlin muxuu ka hadlay video oo mar hore ah video muxuu ka hadlay mar hore iyo mar dambe iyo midnaas kuma weydiin video halka lagu soo bandhigay oo adu aalaheed oo aad aragtay muxuu ku saabsanaa video caadi isnab la iska duubaabis maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunna ku riday 9 gabdhood oo kamid ah dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xirnaa magaalada Muqdisho oo ay gacanta ku hayeen ciidamada booliiska Soomaaliya. maxkamadda ayaa ugu dambeyntii xukun ka soo saartay dacwadda oo loo haystay in gabdhahan caanka ah ay barta TikTok ay dadka kiciyeen, waxaana kamid ah gabdhaha xidhnaa Sihaam Tahliil, Nashaad Nalka, Saadiya Galmudug, Iftiin Model, Anisa Anjali iyo waliba Farxiyo Soona. dhammaantood waxaa lagu soo eedeeyay kicin dadweyne, horin dagaal sokeeye iyo faafinta anshaxumo sida ay horey u sheegtay xeelaalinta guud ee qaranka. sidoo kale dacwadda oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee maxkamadeynta waxaa xukun ay ka soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir arrinta gabdhahan. eedeysanayaasha oo ka koobnaa 9 gabdhood ayaa 7 kamid ah waxaa lagu xukumay min 6 bilood oo xabsi ah, halka 2 gabdhood ay maxkamaddu dib ugu celisay xorriyadooda oo ay fasaxday kadib markii lagu waayay wax dambi ah. sidoo kale waxaa jira dhalinyaro kale oo weli xiran isla markaana ay socoto maxkamadeyntooda kuwaasi oo loo haysto anshaxumo iyo aflagaado iyagoo isticmaalayay baraha bulshada ee gaarka ah sida barta TikTok. howlgalka ka dhanka ah dhalinyarada baraha bulshada ayaa soo bilaabatay bishii May ee sanadkan, waxaana lagu soo xiray dhalinyaro badan oo ku sugan magaalada Muqdisho. hadalhayn xoogan ayaa sidoo kale waxa ay ka dhalatay xariga dhalinyarada maadaama ay yihiin kuwa ugu caansan aaladda TikTok, waxaana dad badani ay qabaan in la suuliyo dhaqan xumada ay wadeen ee dhinaca qabyaaladda kaas oo kicinaya bulsho ku wada nool nabad oo hal meel wada degan. habeen hal saac camal rubi ee xaafadeyda ka soo tagay xafaayadii adeegii shoobina iga go'naa ciyaalka saaxiibkii ugu soo tagtaan adeeg soo doontaana la qabtay. waxayna u dhaqmeen inuu dalku yahay mid fawdo ah oo aysan ka jirin sharci iyo kala dambeyn. fadhiga maanta ee maxkamaddu wuxuu ku saabsan yahay dhageysiga qodobka 116 oo ah difaaca eedeysanayaasha xafiiska xeelaalinta ku soo eedeeyay ee qodobada sare ku soo sheegnay. Sihaam xafiiska xeelaalintu eediisa markii uu kugu soo oogayay wuxuu sheegay in aad abaabushay dagaal adiga oo kiciyay bulsho kuna ballamiyay adiga iyo tiim iska soo horjeedin inta u dhaxaysay iskooyska jidmarixaan ilaa Siinay iskooyska Siinay. arrintaas looga waran arrintaas ma jirtaa? ma jirto. wax dagaal hor dhac ma jiraan? maya. abaabulka lagugu eedeeyay muxuu yahay oo inaad dagaal abaabushay? abaabul dagaal lagu eedeeyay. ya abaabul dagaal lagu eedeeyay ma jiraahe? ma jiro. adiga TikTok walaada maxaa kugu qoran? Sihaam Tahliil. halkan waxaa la soo bandhigay video xafiiska xeelaalintu soo gudbiyay adiga oo caytamaya. arrintaas maxaad uga jawaabay? caytino see adiga oo dad kale muxuu ahaa iscaayisi? ana caysa ma caytino. halkaas video waa lagu soo bandhiga adoo hadlayo muxuu ka hadlay videogaas? dagaalku ma jirin muxuu ku saabsanay? video caadi ah anu gurigay joogo video aan caadi ahayn ma jiree muxuu ku saabsanay? videoga muxuu ka hadlay? dagaal iyo waxaas dhan ma ka hadlin muxuu ka hadlay? video oo mar hore ah video muxuu ka hadlay mar hore iyo mar dambe iyo midnaas kuma weydiin. video halka lagu soo bandhigay
oo adu aalaheed oo aad aragtay muxuu ku saabsanaa فيديو عادي اسناب لا اسكو دوبا بس انا غورغي جوغ له caadi maxaa u taqaan adiga dagaal iyo waxaas فيديو aan ahayn waxaan ku weydiinaa su'aasheedu waxa waaye fiidiyowgaas muxuu ku saabsanaa waxa aad uga hadlaysa maxay ahaayeen waxa ku hadlaya ma jiraan waxba kuma hadlayn